نزواتها أرتوي. xaqiiqadu aad ay u qaraar tahay mana jeclin badankeenu balse waa wax lagu qasban yahay in la ogaado haddii ay dadku ku hadli lahaayeen waxay fahmaan oo keliya dhammaanteenu waxaynu noqon lahayn dad xigmad u saaxiib ah maxaa yeelay aamusku waa xigmad iyo awood farxaddu waxaan ka raadinaa meelo dhib badan kadibna haddii aan si fiican u sii eegno waxaynu ka helaynaa waxyaabo sahlan oo inoo dhow ha u malaynan inay sacaadadu tahay badnaanshaha dadkaad isgaranaysaan balse sacaadadu waxaad ka heli kartaa hal qof oo keliya kaasi oo la jirkaaga ahaada xilliga murugta iyo dhibta murugooyinka qaar uma baahna keliya waxaanan ka ahayn inuu garabkaaga qabto saaxiib kaasi oo kugu yidhaahda aniga ayaa ku dareemi karaa xitaa dadkoo idil haddii ay ku fahmi waayaan haddii ay dadkoo idil kaa soo horjeestaanna anigu waxaan ahaan doonaa midka keliya ee safkaaga istaaga qaar badan oo inaga mida waxay aaminsan yihiin in nolosheennu ay ka wanaagsan tahay nolosha dadka kale qaar kaloo inaga midana waxay aaminsan yihiin in nolosha dadka kale ay naga wanaagsan tahay intaasi oo idilna waxaa u sababa inaynu weynay hal shay kaasoo ah qanaacada sidoo kalena waxaynu ilownay in waxa aynu milkinay oo aan haysanno ay ku jirto sirta farxadda markasta adigu ahaw mid hadalkiisa uu cad yahay yacni waa inay caddaataa runtaada hana noqon qof isticmaala hal weji ka badan qofkii si dhaba kuu doonayo wuu kuu imaanayaa si kastoo aad tahayba qofkaad adigu rabta ee aanan ku rabinna iskaga tag oo ka fogow balse marnaba si aad qof u kasbato ha u noqon qof wejiyo badan isticmaala ee mar kasta ahaw qofkaad adigu tahay وتنهال أسرارها في الفؤاد تناديك شوقا فتحبو إليها تهيم بنزواتها في ابتعاد